kala jeclaysaneyn oon xaafad iyo qolo toona idin kala saarahayn idinkoo wadara idin wada jeclaanaya waxa inta noo raaca waxaan ka xunahay aad iyo aad uga xunahay in hoolku inagu yaraaday idinkoo na soo qadariyay laakiin aniga iyo abwaan laab saalax waxa isla garanay habeen kale iyo goobtan ka weyn inaynu fooda isku darno idin la hadallo idin su'aalaad adag idinkuna su'aalaha aan naga qabtaan kalsoonida nagu qabtaan iyo haddii shaki aan naga qabtaan uu jiro labadaba aan weydiisaan oo aan idinka jaahil saarno waxa kaloo nu isla garanay inaanaan mawduucyadii ay ahayd aanu idinkala hadallo inaanaan ku talax tegin inaanu dulkaxaadis ku samayno si markaa kuweena taagan iyo kuweena cidhiidhiga ku jira labaduba aanay u dhimudan kol haddaan isu soo noqonayno muddaduna insha Allah fogaan mayso waxaan walaalayaal doonayaa inaan idin xasuusiyo wadar ahaan waxaad tihiin muwaadiniin qarankan wada leh idinkoo siman waxaa idin simay sharciga waxaa idin simay qaanuunka waxaa Soomaaliland ku wada leedihiin idinkoo siman oo qofna qof aanu caaro dheerayn sideedabana qabiil laguma dhisa qaran loolanka ka dhaxeeya laba qabiilna qaranna ma dhiso qaranna ma horumariyo waxaynu nahay qaar 30 sano muddo ku dhow jiray oo soo tijaabiyay qabiilka waxaynu soo aragnay siyaasiyiin iyagu nolol samaystay waxaynu tijaabin doonaa kuwa ballamaha quruxda badan qaadaya waxaad shaki ka qabtaan inay ballantani la mid tahay ballantii hore laakiin war jiraaba cakaaru iman soddon sano oo la jiray ninka maanta ballan qaaday ballantaa ka baxa waxa sugaya dhalinyaro fara badan oo midaysan dantooda garanaysa su'aalaha adag ee hayaan cid uga jawaabta rabta muqiyaas sita isbedelka ay ku qiyaasayaan oo ay garan karayaan wixii loo ballan qaaday in loo qabtay inaan loo qaban waxa ka caysa dhalinyaro kala garanaysa runta iyo beenta waxa ka caysa dhalinyaro garanaysa hadallada la qurxiyay iyo kuwa lagu qurxiyay si xilka loogu fuulo ilaahay waxaan ka baryaa doorkan maanta ragga ummadda hor imanaya inay yihiin rag isku kalsoon oo ballanta ay qaadaan sida uu oofinaya waxaynu rabnaa madaxnimada inaynu soo daadajino inaynu doorano madax idinka idinla noolaata idin dhex joogta idin timaada marka u baahataana heshaan wadada ku heshaan suuqa ku heshaan xafiiskana ka heshaan talada la gaari kartaan la hadli kartaan xilliga doontaan xilli allayaala xilliga u baahataana fariinta u dirtaan idinka soo jawaabi kara waxaad qawadaan uu yahay waxa iyaguna qawadsan yihiin waxa qabiyooba ay tahay qabiyadiina ay tahay qabiyadooda waxa qabsoomayna farxad gelinayaan ay yihiin wax iyagana farxad gelinaya arimaha noocaas qofkii isku kalsoon ee ummadda inuu hor yimaadaan jecelahay qofka aan inta oofin karin dhalinyaradani way samreen ummadana waa ummad samirtay samir badan baanay la timi qofka aan kalsoonida isku qaban saacado badan aan shaqayn karin caafimaadkiisa aan hubin aqoontiisa aan hubin amaanada inuu ilaalinayo aan hubin kaasi doorkan maanta ummaddu inuu hor yimaado maaha qofka ummadda hor imanaya waxa weeye qof isbedel degdeg ah sameynaya qof riyadu u sugan tahay qof hankiisa iyo rabitaankiisa uu ka weyn yahay in loogu yeero magac iyo title qof ka weyn oo iskala weyn oo iskala qiimo weyn gaadho qurux badan qof doonaya inaanu isagu nolol samaysan ee dadkiisa maalin uu ciil saaro ummadaha kale adduunka horumaray baynu la mid nahay horumarka la rabo waynu samayn karnaa hadduu boolki gaamir uu anda bedelay Hargeysa waa bedeli karnaa Soomaaliland waa bedeli karnaa waayo isagu waa bini aadam adiguna bini aadam baa tahay sagaal bilood buu ku dhashay adna waad ku dhalatay ilaahay baa idin wada abuurtay indhaha waa ka simantiin maqalka waa ka simantiin xubnaha oo dhan waa ka simantiin waxa la yaalo waxa ku xitaa midabka boolki gaamayay midabkeenu waa soo yahay marka waxa la yaalo cudurdaar aynu haysanaa in wadankeenu horimari waaya ma jiro ninkii marka cudurdaar beena meel ka soo qaadanaya isaga u taala madaxdii nagu horeysay way nasiib badnaayeen
waayo dadku ogaal ma yahayn xog badanna ma yahayn madaxda soo loola xisaabtamo ma yaqoon qabiilka ku xoog badnaa laakiin maanta dhalinyaro badan baa xorowday xog ogaal ah waxay doonayaan garanaya codkoodu sababta u bixinayaan garanaya qofkii codkooda ku aamineen hadduu codkooda abaalkii u celin waayana garanaya say qofka u dhibaan marka qofka madaxda ah ee maanta Soomaaliland isu soo qaawinaya waa inuu noqdaa qof aad isu soo shirabay aad isugu noqday aad arrimo badan isaga hubiyay ajaladihii badnaa laga duubay aad u dhageystay dabeetana mid kastiya hadal kastiya ballanqaad kastuu sameeyay waa inay isaga ka muuqataa waayo shacbigii buu yiri muraayadii noqda oo eega oo ila xisaabtama inta marka laga yimaado walaalayaal arinta qabyaaladda maxaynu qabyaaladda uga hadalnaa maxaynu ugu celcelinaa waxaan aaminsanahay qabyaaladdu inay tahay tacaqabada ku ah inaynu helno dawlad wanaagsan maamul wanaagsan horumarin degdeg u yimaado waxaan aaminsanahay anigu inta ay qabyaaladu jirto inaan la helayn dawlad wanaagsan inaan la helayn madax wanaagsan waayo marka aynu doonayno madax wanaagsan helno waxaynu u baahannahay inaynu isbabar dhigno madax tartamaysa inagoo miyir qabna maankuna aanu inaga maqnayn qofku hadduu qabyaaladaysta yahay laba qof isma barbar dhigi karo laba qofna ma wada dhageysan karo arrimaha ay ka hadlayaan oo ma fiirsan karo go'aan saxana ma gaari karo waayo ay tahay hadduu qofku qabyaaladaysta yahay marka horeba qofku jecel yahay labada qof ee doodaya labada qof ee balama qaadayna marka horeba qofka la qabiilka buu jecel yahay isku suu ma dhageysanayo isku sina hadalkoodu macna ugu ma sameeynayo waayo maanka iyo maskaxda wax xorka ma aha waxaynu si maanta doonaynaa walaalyaal dantiina u midoodaan dantiina wax xorowdaan ina iska kaayo hubisaan hadda aniga ay doorta ma aha waa ina iska kay hubisaan waa ina nin kasto idin hor yimaadana iska hubisaan kuwa soo socdana waa u digaya anna waa isu digaya war Soomaaliland intii samri karaysa way samartay intii dul qaadan karaysana way dul qaadatay noloshan laguma sii jiri karayo isbedel waa inuu yimaadaa isbedelka qofkii aan keeni karin Soomaaliland soo qaawiyo ma qolaynu cuskada ma salaanada qabiilka xarbaa gali doona way iska soo dhici doona salaanad fuushanaan karaysa maaha intii la fuushanaan karay waa la soo fuulay intii daara lagu dhisanayna waa lagu dhistay intii xilbeena lagu helayna waa lagu helay maalmihii runta yimid runtii baa horteena joogta maanta runtii beenta la kala dooranaya anu saxsan qabaa haddaana dooran weydaan cidda aan sidan kaarka qabiilka haddaa dooran weydaan waxa qirteen Soomaaliland weligeed saacaanayso Soomaaliland adduunka ka dambeynayso haddaad dadka wanaagsan doorataan iyagana xil baa saaran xilkooda inay ka soo baxaan baa saaran abaalkiina ay celiyaan baa saaran waxa ka doonaysaan idin qabtaan baa saaran balantay qaadeen inay wafiyaan baa saaran walaalayaal siyaasaddu marna waa run marna waa been markay run tahay waxa weeye marka musuqa lagu dagaalamayo marka ummadda wixii loo balan ummadda loo sameeyo marka qofka siyaasigu qiyaasi halku uu yimiyo ka qaadayo ee uu garanayo halku uu geeyo marna waa been marna siyaasaddu waa been markay beenta tahay waa markuu siyaasigu leeyahay tolaaye goljil ilaala tolaayada waad ku doorataa kursigaad ku saartaa adiga nolol kuma sameeyaysaa loo sameeyay haddana waxaad weli baadi doonaysaa wadankii quruxda badnaa ee safratibaad baadi doonaysaa magaaladii quruxda badnayd baadi doonaysaa laakiin siyaasaddu run ma aha markaa waa been hadday si run tahay waa in la helaa dadka quruxda badan muddo yaroo kooban waa in lagu helaa magaalada quruxda badan waa in la helaa waa in gobolka gaana dadkiisa muddo yaroo qurux 94 ku tirsanaya inaguna 29 ku tirsanaya maanta ruwaado waa bajiranaya kigaana waa magaalada quruxda badan ugu weyn Afrika hadduu sameeyo waad samayn kartaa siyaasaddaas ku nooshahay kullu way siyaasadda kala beeyo labada hala kala saar taa macnaheedu maaha codkani maaha cod ilaaliga doorta codkani waa cod baadi doonaya xitaa mid see ka wanaagsan baadi doon waxaa ugu jira qof cabdikariin ka wanaagsan in la helo hargeysana maayna ka labo intaas waad samayn karaysaa samayn kara in ka badan samayn kara daacad intaan dadka u noqon kara dadka isku wada karo midayn kara
riyada aynu sidaan riyada weey maaha riyi meelaha maaha riyi iska soo socoto maaha riyi mar uu maayo hal uu idhaahdo maaha riyi nolosha ka samaysata maaha wallaahi ma ku dhaartay waxaan ahayn in magaaladii uu hiliyo aan sharax u hayn haddaan waayo waan farxaya haddaan helno waxaan garanayaa xilka ay saarteen waxaan ogahay caafimaadkaygu wax yeeli doonto waxaan garanayaa saacado badan aan shaqayn doono waxaan garanayaa inaa in badan muraayad ahaan doontaan waxaan garanayaa wixii aan in badan qaadaan dhegeysan doontaan waxaan garanayaa inta khudbad jeediyay inaa maalin walba soo bixi doontaan alla maxaa hawlina sugaysaa aniga hawlba ay sugaysaa aniga hawlba ay sugaysaa inaa rumeeyo ay sugaysaa idina hawlba ay sugaysaa gorjil cidii leeyahay qaban jiray inaa la qaban bay sugaysaa dagaal baad naftaada la gelaysaa dareenkaaga la gelaysaa dagaalka la gelaysa dareenka naftaada waxa weeye dareenkaagu raggii qabiilka yaqaanay qabiilkii soo noolaynaya qabiilkii kicinaya bilaad qorashada ka horeysa tolaaydin hawada way ku oranayaan gorjilcidaada yaqaanaan inay tolaayda ku kaxaystaan bay doonayaan aduna waxay doonayaan la dagaalanto maya inaad ku tidhaahdo markan inaad bilaad qabiilka tijaabiso markan hargeysa inaad u geliso markan inaad la xisaabtanto adigoo qabiil ugu dooranayn xaafid ugu dooranayn inaad taqaanaan ugu dooranayn أهل من المياه الدورين حلز من المياه الدورين لكن يسري واحد مرة ثانية. أكان سلعة سوى سوى حواليها بعد كل طفل ولا سنة شو. أنا مريض كان ولا سنة. ورنت هي بيتك على ضرب. وعن كذا بحياة. ولا ريال دنياتي. وفق الدنيات يكون بعين. وفق الدنيات يكون بعين. صدق شيء. ولا ريال. lagu helo horta jidka horumarka waxa keena dawladnimada keenta qofka dhalinyarada dawladdu inuu yeesho saddex oo ka fila waa maxay intii yar wax barasho ka raba maalintu kan jiriyo shaqo ka raba markuu shaqo helo uu raba dalkii quruxda badnaa iyo magaalada quruxda badnaa mushaarkiisa ku dhexlaabo magaaladu inuu jecel yahay ku salaamo magaaladu يقدر كل اللي عهوته وتشعلي منه هذا عليك إنه في الصلاة أنت سايق سيسا وعبرش مهليسا شقم مهليسا ده كان منوق وحنايا مجالنا أنا منوق وحنايا بسمع أنا بني قدام نية هي آيات كاميرا يوتيوب تكساسات صوته قدام نيجي لها قصتي أبو هارك الله هو وطلع إنها بيسيس تبتكلم صادو ولا هل كان نقول حيوي مالي أصول الإسلامي وريالو عاونوا وحالك نقد لحد مشان ويرات موضوع أنا واسو صار قرينا إسبدل القف والباء إسبدل كان سمين سو عدي أنا كان حناني نفتح البدل أدو إسبدل سادو فكري سبدل عطف سادو بي سبدل سمانا سادو تعالي سبدل ساد واي مركو هذا قبيل كان تعالي سمانا أنا واحد واحد دلك عتعشي أفتر قبيل لكن واحد ربنا إن السماء ولا تشرامه بدك السماء إلى ولا تشرامه رجيس حافظ ملها ومن الإسلام نسا ظروف سكول عطالة ورد سكول عطالة رجيس وروح مدانسا أبو ورفوق مدانسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.